magacaygu waa sakriye xasan bare oo ka yimid degmada hodan gaar ahaan xaafadda saybiyaan aad baan idiin salaamayaa guddiga barnaamijka maxaad ku tartamaysaa waxaan insha allah codkay ku tijaabin doonaa cabdi baadil falaarihii jacaylka cabdi baadil allah naxariista ii soco falaarihii jacaylka igu fara adkaysto fikrigu abuure wax ma igu filan tahay inkastoo fargaaniyo fila dheer ku xidhan tahay oo aadan furan karin anna kama foqi karo falaarihii jacaylka igu fara adkaysto fikrigu abuure wax ma igu filan tahay inkastoo fargaaniyo fila dheer ku xidhan tahay oo aadan furan karin anna kama foqi karo waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey inaad furaarag noqotay anoonkaaba filanayn waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey inaad furaarag noqotay anoonkaaba filanayn lafataga fogaayo fidda xarigga loo suro fidka cawsha lagu dabo feelahaaga lagu maro dumar ugu filroone filaqaas lagu dhigay sidaad ugu furfuran lahayd sifafalaygaasi waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey waxaa iga fajiciyey fahmadaydii lumiyey inaad furaarag noqotay anoonkaaba filanayn waa hagaag aan ku horeeyo falanqaynta anigu waa hagaag sakariya xasan barre heestan runtii aad qaadayso waxaa ku luuqeeyey horta oo ku caanbaxay hobol aad u cod macaan cabdi baadil oo ina daawanaya iminka kuna farxaya sida aad u soo dadaashay ee ugu soo diyaargarowday runtii waa fanaan heesaa cabdi baadil waa fanaan muusikiista kabanka iyo muusikadaad ugu sarreeya waa fanaan mulaxana oo heesaha uu sameeyo codadka u sameeyo sidaa iminka loogu raaxaysto yaa salaan waad u soo diyaargarowday inaad heesto cod lagu heesana waad leedahay oo waa ka aad ku qaaday anigu dhankayga sakariye xasan bare soorey horta runtii waan isku khalday ibraahim iyo cabdi jarmalku degaya aad baan u salaamaynaa ninkaad heestiisa qaadayso cabdi baadil xuseen codka macaan ee aad ku heestay sidaa teembada ula socotay jidhkaagoo teembaysnaa mustaqbal faneed cod lagu raaxaysan karo oo dhegta maqashaa ay soo joogsanayso ayaad noogu heestay runtii laxankii fanaanka iyo heeskiisu siduu ahaa eray iyo laxanba oo aad saxday dhankayga maasha allah sakariya xasan barre waxaan ku leeyahay horta fanaanka waxaa la socota laba qof aakhiro sheekh xanaaq iyo sheekh farxaan zakariya waxaa la socda sheekh farxaan marka sheekh farxaan adoo kula socda mayma ku dhihi karee waad gudubtay sakariye wareegga labaad baad u gudubtay waad degi kartaa